الليلة عمري درب واقيو عافيمات كقرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وايني سلامي وسعاديني لا كسو دوادا جنر كنورية كسو دوادا قعمو فرن كسو دوادا قلبيني جعل أخياري waxaan rajaynaynaa nabad qabtiin caafimaad qabtiin sana nagu nabad qabno oo caafimaad qabno waliba shaqalka lagu jiraa wali fasaxi ma ku jirnaa ma akhristay jaraa'idka wadankeega aan ka nimanay waan la soconnaa dabcan isbedelka xanuunka Allah noo sahlay ilaahayna ha naareer mariyo inta ummada islaamka uu ku dhacayna ilaahay ka badbaadi oo ka caafi انت كنت تكتين إلى ونحرسو انت كلنا إلهي ونحرر مري الله نهي مركا جرائد كي والله صعنا ومركا استاخر سنة مركا جرائد كي أنا آخر سنة أيان الله كل ماي جرائد كلا مرايكن كا أن جرائد كا أيان كا آخرين يي شاكا كدعدي ودن كبونيفيل ان أركانساس مرايكن كا أيان كدعدي شاكا داني أن قبل يرو صدح جيرة أيا كل منطقة بابورك دحديسة وحنا أي أول منطقة قبل أير باللي هاي بابورك كل لها أو كحرماي أم بلوغو حري ولي ولا باري عشان كذا مركا إن تياري صدح جير بهاي ويكون ساعتين يدو كلالكي ودي ويكون منطقة laakiin tiyaro kale walaasheeda ayaa jirta oo 15 bilood iyaduna ahayd oo baawurka ku dhex jirtay marka tiyareedna waxay ku jirtaa wali koomagay ku jirtaa laakiin tii 3 jirtii way ku socotay markaas wali sheekada lama oga say ku dhacday iyo say u dhacday iyo intay ku jireen baawurka lama oga bas waxa la sheegayaa waa la baarayaa bas waxa la sheegayaa inay hooyadii ay seexatay oy guriga huruday caruurtana laga helay baawurka dhexdiisa markay soo toostay ayaa ku qoran jaraa'idka waxa ku qoran weeji hooyadii way seexatay markay hurdo kadib ay soo toostay caruurteedii bay weyday caruurteedii markay weyday kolba dhinaca u ordaysay ninka jaarkana codkiisii iyo ra'yigiisii iyo wuxuu arkay ayuu ka dhiibtay isagana waa la waraystay ra'yigiisu marka dambe ka soo sheegi doona naagtii way socotay markay toostay caruurtii ka weydo gurigeegii way oroday khalaag panic ba qabsaday horta dabcan hooyo ilmeeyga doonaysa inay disho amba ilmeeyga doonaysa inay wax yeelayso ani shakhsiyaanteeda ilaa ma aha ta wax doonaysa inay samaysana maskaxdeedu ma dhana ayaan leeyahay marka adigu hooyadii way oroday caruurtii raadisay marka ninka jaarkina uu arkayay arrimuhus ay u dhacayaan iyo waxa meesha ka socda ayuu la socday dabcan marka naagtii way qayliday booliiska u yeeratay booliisku markuu yimid caruurtii waa la raadiyay caruurtii waxa laga soo helay baabuurkoogii iyagoo ku dhex jira marka tii yarayda 3 jirkii way dhimatay tii 15 bilood ayaa noolayd wali laakiin tiina koomaaba la geliyay sababtaasina waxa weeji ay sida ku noqdeen baabuurku oo kululaa temperatureka amba cimilada la sheegayo 30 korba u dhaaftay marka dabcan caruurta inta yar laaleeg marka lagu dhex rido baabuurka waa ay waliba qoraxdu saa u kulushahay waa khatar weeji kulaalku waxa dhici karta inuu madaxa taabto ama inuu maad aragtay dhibaatooyin kale ayuu keenayaa markaas sababtay u dhinteen adoo imika kuleel baa la sheegayaa laakiin ay u dhimatay tayana ay yiraahdo ta 3 dhimatay ta 15 wali way noosha kooma bay ku jirtaa 15 bilood wali way noosha kooma bay ku jirtaa markaas hadda caruurtii gacmaha lagu hayaa hooyadii way yaaban tahay booliisku wuxuu isweydiinayaa ilaa muddo ayay ku jireen ayaa la isweydiinayaa ma saacad 2 saacadood goormay ay galeen kow sidee u galeen ayaa geliyay baabuurka waxaayoo dhan baa imika la baarayaa laakiin hooyadii iyadaaba dee dalabatay baan askartii u yeedhatay marka lama garanayo sida ay ku dhacday ninka jaarkiina wuxuu xaqiijiyay
inay hooyadani ay habeenkii xilli dambe ay shaqayso marka waxay ka shaqayso iyo siday wax u dhaceen iyo waxayoo dhan ayaa la baadhayaa hadda marka inantii yaree 3 jirka sidii bay ku socotay oo ku dhimatay tii 15 bilood ayaa koomaa ku jirta marka ani fariinta aan doonayo aan u soo qaatay jaraa'idkan halkan aan inii soo dhigi doonaa maxay ahayd jaraa'idka aan ka akhristay halkan aan inii soo dhigi doonaa markaas waxay iga tahay inaan baraarujiyo maadaama waqtigii sidan u kulul yahay oon xagaagiyadii aan weli ku jirno markaas inaan bulshadeena aan baraarujiyo oo ubadka lagaga tegin baawurka dhexdiisa amba ubadka lagaga tegin meel kulul amba ubadka maaragtay hooyo doonata in ilmaheyga wax noqdo ma jirto laakiin haddana marmarka qaarkood waxaa dhici karaya inaad wax yaro aad dayalsatid ay wax weyn ay keenaan marka ka digtoonaada ka foojignaada maxay ahayd markay cadceedu sidan u kulushahay amba maaragtay maxay ahayd cimiladu sidan u kulushahay ka digtoonaada caruurtiina haysta waxba maaha inteera dukaanka aad u kaxaysanaysa waa run waa qalqaali waa run waxay ciyaala ma kaxaysan karaysid laakiin haddana dhibaatada kale ka imanaysa ayaa kasii daran marka midba mid bay dhaantaa marka tani ayaa la qaatay ood iska qaadatid ood si la wala buuqdiin ood maad aragtay ayaa la qaatay haddaad mar aad kaga tagtid baawurka oo lagugu arko ama ay dhuku kululaadaan ama maad aragtay caruurtu ay kasoo baxaan wax kasta way dhici karayaan markaas yaa la dhayalsan waxa maaragtay wax yar yaa laga soo qaadin waa maaragtay khatarteeda ay leedahay dhibaato kalena way ku keeni karaysaa waayo hadhow haddii ciyaalka wax kugu noqdaan kuwii kalena way galaafanayaan waa lagaa wala qaadi marka dhibaato intaa ka weyn baa soo socota marka insha allah inaan intaa baraarujiyo hooyooyinka oo maad aragtay maadaama dhulka kulul yahay aan ku baraarujiyo oo maad aragtay aan maxay ahayd wacyigeliyo oon maad aragtay aan isdul taagno ayaan uga dal lahaa videogan aan duubayay marka inanta yarayd saasay ku dhimatay tii kalena koomaa bay ku jirtaa hooyada dhashayna waxaa la sheegayay jaraa'idku waa nii soo dhaafay waxaa la sheegayay 21 bay ahayd iyada qudhideeduba hooyo yar bay ahayd oo caruur yaryar haysata marka tala way ka baahday marka waa inan yar bay ahayd iyada qudhideeduba marka hablaheena kuwa yaryar maad aragtay caruurta haysta amba ilaahay hore u siiye caluul amba ilaahay hore u siiye reerahana aan isgarab taagno oonaan ag joogsano sidaan maad aragtay waxaan inaga waaweyn aan garanayno ama aan arkayno iyagii waxaa dhici karta inayna arkayn marka hooyada jaarka ee Soomaaliga inay ku dul ilaaliso oy ma aragtay wixii ay ku dhaanto amba wixii ay arkayso inay khatar uga imanayso la caawiyo oo la isgarab taago hooyada yarna ayaan ku dhiirigelinayaa oo ma aragtay hooyada weyn hooyada yar ay caawiso oo la isgarab taago adigoo si reer magaala wax ugu sheegaya waayo qofka markaad aad la dirirtid amba si xun ugu sheegtid inuu ku quursadaa dhici karaysa haddeed kuguma soo noqonayo wax kalena kuma weydiinayo marka hooyada yarna hala isgarab taago waa iyadii baaba weli indhihii u kala furmin iyadii baaba weli ilma inan yara iyadii baaba weli ilmo yara iyadii baaba weli waxba weli adduunka ka arkin marka hooyada weyn ee ag joogta amba ku dhow amba wax aragta inay wax ay ka khariban yihiin amba wax ay ka qalloocsan yihiin inay u toosisana way wanaagsan tahay waayo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan ta labaad dhibaatada kale soo socotana waan ka hortegi karaynaa haddaan isla wada shaqayno hooyada la caawiyo caruurta iyo hablaha yaryari wax badan baa ka daahsan marka in iyagana la gacan qabto oo la caawiyo ayay aan jeclaystay inaan inii soo gudbiyo waayo ina taayir waa 21 bay ahayd 2 ciyaal haysata kuntu 3 jir iyo 15 bilooda marka hawshii markay ka badatana mana waxaa dhici karaysa inay iska seexatay amba inay daashay amba inay indhaha isku yar qabatiri siday u dhaceen weli lama garanayo weli lama soo sheegin laakiin xaaladda sidani ayaa maanta duhurkii ayaa lagu soo tuuray koronkan ka arkay
oon ka akhriyey markaas allah mustacaan ilaahuna astur ilaah dhulka nagu astur markay wax dhacaana waa lagu dul joogaa adigii naftaadii halis baad ku jirtaa kuwii kale halis bay ku jiraan marka meesha waa isla wala kharibantay marka ilaahay haynoo naxariisto ilaahay hayna ilaaliyo ilaahay baa wax ilaalin karaya ilaahay hayna caawiyo marka intaasaan doonay inaan la wadaago oo ma aragtay aan isku baraarujino oon ka digtoonaano oon ka foojignaano dhibaatooyinka maxay ahayd socda iyo dhibaatooyinka inagu soo socon lahaa ilaahay baa wax badbaadiya laakiin adigina haddaad foojignaatid wax waliba way hagaagayaan insha allah marka intaasaan doonay inaan ila wadaago oo inagu baraarujiyo waxaynii rajeynaa meel kastoo joogtiin galab wanaagsan waa galab bay noo tahay habeen bay ku dhowdahayba laakiin maadaama xilli dambe ay dhacayso galab baa la moodayaa markaas hadday horta videogan uu ku cajabiyey laagta saar haddaad aad ka faa'iidaysatayna usii gudbi dadka kale say uga faa'iidaystaan haddaad doonaysa ra'yigaaga inaad ka dhiibatid amba su-aalo inaad ka dhiibatidna commentiga noogu soo dar hadda noogu soo qor noogu soo dir haddaad doonaysid videogan iyo video lamida kale inaad daawatid oo channelka nuuriya aad ka daawatidna subscribe ka saaro sidaad ula socotid oo video kasoo soo dhigaba ay kugu soo dhacaan gambalaalkana furaha ka iloobin marka waxaan igeen nabad tegayaa sidaa iyo fi amaanillaah babaay habeen wanaagsan galab wanaagsan subax wanaagsan oo wacan waqtiga aynay tahay maca salaama intaan video kale ku kulmi video ka dambe ku kulmi doono sidaa iyo waxaan igeen nabad tegayaa maca babaay allow ciidan ciideeda cimri dherer barwaaqiyo